taliska qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka ayaa dowlad goboleedka Hirshabelle ku wareejiyay mas'uuliyadda qaadista lacagaha canshuuraadka oo in muddaasi ku meel gaar ah u hayeen ciidamada xooga dalka. Maxamed Xasan Cali ayaa faahfaahinaya. si loo hagaajiyo nidaamka dakhli aruurinta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka General Maxamed Maxamuud Koronto oo ay weeliyeen saraakiil ka tirsan qaybta waxa uu maamulka Hirshabelle uu ku wareejiyay mas'uuliyadda qaadista canshuuraha oo si ku meel gaar ah u hayeen in muddo kadib markii uu gaaray deegaanka Ceelcadde oo isku xiray magaalooyinka Warshiiq Adale Muqdisho iyo deegaanka Bar 20 ee duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe halkaas oo ay fadhiisin ay ku lahaayeen cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka. General Koronto taliyaha qaybta 27aad ayaa ciidamada ku amray in wixii maanta ka dambeeya aysan qaadin karin wax canshuura isla markaana ay si rasmi ah u la wareegeen maamulka Hirshabelle. laakiin anaga waxaan noo qorsheeyaa degmada Balcad ba afka laga soo galo waa number 20 meesha la yiraahdo gudoomiyaha Balcad oo jooga inaan ku wareejino gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha Balcad in aan checkpointkaas military qaybta 27aad wixii amarkeena hoos yimaada anagoo fulinayna amarka taliyaha xooga dowladda federaalka Soomaaliya oo soo baray maanta laga bilaabo inay joogi karaan ciidan checkpoint ah ay maalid waxa shaqo ku leedahay state-kaas ay la wareegaan saacadaha waxaan ballan qaadayaa in la wareegaan. Gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe Qaasim Cali Nuur oo warbaahinta qaranka kula hadlayay deegaanka Bar 20 ayaa muujiyay in haddii la mideeyo canshuurta gobolka ay tahay tilaabo loo qaaday dhinaca horumarinta dhaqaalaha. ka maamulahan reer Balcad hadii aan nahay soo dhaweyneynaa go'aanka ay qaateen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo amarka ku bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya anaga ka maamulahan maadaama uu socdo gudoomiyaha gobolka anaga reer Balcad waa qaadana waana soo dhaweyneynaa. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makaraan Axmed Faal oo ku hadlayay magaca dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo dhaweeyay talaabada uu qaaday taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka isagoona sheegay in arintan ay qayb ka tahay qorshe lagu mideynayo dakhliga soo gala dowlad goboleedka Hirshabelle. intii ay maartay maamulka ay inta gacanta ku hayeen meesha ay joogeen shaqo wanaagsan ay qoti qabteen waxa hadda uu duruufta keentay wixii jiray in la mideeyo hore loo sii kaco la sii dhaqaaqa loo baahay maahan wax kale oo gooni maahan in systemka dawladda maalinba meel uu ka soo kabma hadii dhaqaalihii shalay uu meel kale lagu kala xaliyay in maanta dhaqaalihii la mideeyo asigoo wax galaayo wax tiri karo wax lagu qabtay ay maartay muhiimadeeda tahay waxa laga tashaday ama gobolka iyo maamul goboleedka ay ka tashteenba waa intaas. Maxamed Xasan Cali idaacadda telefishinka qaranka degmada Balcad gobolka Shabeellada Dhexe.